بسم الله. maanta waxaa bilaabeynaa cashir cusub. waxaa la lahaa logarithm. marka qofkii potensiga si fiican u fahmay way u fududaanaysa siduu u fahmo logarithm. marka qaacidooyin yaryar ah ku bilaabi doonaa. tan koowaad waxaa waaye hadaa haysatid tan koowaad waxaa waaye 10 la kordhigay logarithm a waxay la mid tahay a tiraday rabtaa noqoto. marka meeshii log ah ka qori lahaa waxaa qoraa lg. okay, qaacidada labaad waxa waayay haddaa haysatid lg a oo ba la kordhiga waxay la mid tahay ba lg a. marka bal example qaadano. exampleki intaana qaadan waa maxay logarithm adaa fahmi doontid. haddaa dhaho 10 lg 10 waa hal, lg 100 waa labo, lg 1000 waa saddex, lg 10,000 waa afar. tiradan intay ka timid? okay, tiradan waxay ka timid lg 10 waxay la mid tahay lg 10 oo hal la kordhig, lg 100 waxay la mid tahay lg 10 oo laba la kordhig, lg 1000 waxay la mid tahay lg 10 oo saddex la kordhig. 10 lagu dhufto 10 lagu dhufto 10 lg 10,000 la mid tahay lg 10 oo afar 10 lagu dhufto 10 lagu dhufto 10. marka jawaabteena waa maxay? jawaabta waxa waaye taas waa potential, waa exponent. okay, waxaa isku dayaa inaan example yar aan sharxo. okay, balba aragna exampleka koowaad anakoo taas isticmaalayno. waxaa haysataa 2x oo lamida 4. su-aashaa waxay tahay x waa maxay? exponentka intuu yaa ma ogid. waxaa rabnaa inaan helna x. saa ku helayna waxaa ku heli kartaa lg a labada dhinac ka dhigay. haddaa equation haysatid labada dhinac inay isku mid noqdaan. marka waxaa dhehe lg laba oo xa la kordhiga la mid tahay lg 4. marka xtan saa hore u sheegnay anakoo qaacidadan isticmaalayno tiradaas kore exponentka hoos way imaan. marka tan waxay noqonaya x lg labo oo lamida lg 4. yaraa noqda okay. x maxay la mid tahay equationka caadiga ugu shaqeynaya. x waxay la mid tahay
lg4 oo loo qaybiyey lg2 marka calculatorka haddaa isticmaashid waa arkee calculatorka waxaa ku qoran log marka log saana ku soo baxayso waxtaas camala afara inta geline waxaa u qaybine log laba u qaybine aniga u jeedaa jawaabta waxay tahay inay laba tahay u jeeda marka saa ku helay labo anoo calculator isticmaalin waxaa ku helay anoo haysto lg4 iyo lg2 lg4 waxay la mid tahay labo oo labo la kordhi labo ku dhufo afar ma okay iyo lg2 labadan hoosaa keeni kara oo sharciga saas lg2 waxaa u qaybi karaa lg2 kan kana isku bax jawaabta labo waxyaabaha saan u fudud waa laga shaqeyn karaa saada ugu shaqeeya laakiin markay adkaato lg5 iyo 6 markay tahay way dhib badnaa okay isku day inaad ka shaqeysid example-kan saddex oo x la kordhigay intana waxaa ku haysataa afar su-aashaa waxay tahay x waa inay hoos dheh ka shaqee okay haddaa ka shaqeysay marka koowaad lg a labada dhinac dhige saddex oo x la kordhigay waxay la mid tahay lg oo afar marka xtan hoose imaane waxaa waaye x lg oo saddex ah waxay la mid tahay lg oo afar x waxay la mid tahay laga yaabo inaa si boobsiis ah u wada howsha igaraala noqda lg oo saddex ah aa labada dhinac u qaybinaya sida caadiga equationka u yahay marka xta caadi u hele x waxay la mid tahay lg oo afar ah loo qaybiyey lg oo saddex macnaha taasaa jawaabta marka muhiim maaha inaa haddaa rabtid calculatorka ku aalamitay ka shaqey lg afar ah loo qaybiyey lg oo saddex ah jawaabta waxay tahay soo sheeg wabillahi towfiiq alaana ku ekeena